taariikhdu markay ahayd 11 bishii 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow maxamed xaaji axmed ilka case 27 jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose labo saalim siciid maxamed salmaan 27 jir ah ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose saddex axmed maxamed haashim carab 26 jir ah ina cadday axmed islow ku dhashay shabeellada hoose kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah eedaysanayaashaasoo kale ah kow taariikhdu markay ahayd eedahaasi oo kale ah kow taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 8 2016 marxuum cumar maxamed abiikar labo marxuum sarreeye guuto bool ismaaciil axmed ismaaciil makayaalow taariikhdu markay 28kii bishii 10 2016 saddex taariikh 27kii bishii 4 2017 marxuum eki sarreeye guuto maxamuud xaaji cali afar taariikhdu markay ahayd 24kii bishii 9 2017 marxuum eki sarreeye guuto xoogga cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux iyo askari ilaalow ahaa lagu magacaabayey marxuum ekis dable xoogga maxamed bile gacmey oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shan taariikhdu markay 16kii bishii 1 2018 marxuum cabdulqaadir daahir deyriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta soomaaliyeed lix taariikhdu markay 20kii bishii 2 2019 marxuum maxamed cabdiraxmaan maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah saddexda xukunsane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markeed 31kii bishii 12 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19kii bishii 7 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29kii bishii 11 2020 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi tawfiiq taariikhdu markay ahayd 11 bishii 12 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow maxamed xaaji axmed ilka case 27 jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose labo saalim siciid maxamed salmaan 27 jir ah ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose saddex axmed maxamed haashim carab 26 jir ah ina cadday axmed islow ku dhashay shabeellada hoose kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah eedaysanayaashaasoo kale ah kow taariikhdu markay ahayd eedahaasi oo kale ah kow taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 8 2016 marxuum cumar maxamed abiikar labo marxuum sarreeye guuto bool ismaaciil axmed ismaaciil makayaalow taariikhdu markay 28kii bishii 10 2016 saddex taariikh 27kii bishii 4 2017 marxuum eki sarreeye guuto maxamuud xaaji cali afar taariikhdu markay ahayd 24kii bishii 9 2017 marxuum eki sarreeye guuto xoogga cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux iyo askari ilaalow ahaa lagu magacaabayey marxuum ekis dable xoogga maxamed bile gacmey oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shan taariikhdu markay 16kii bishii 1 2018 marxuum cabdulqaadir daahir deyriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta soomaaliyeed lix taariikhdu markay 20kii bishii 2 2019 marxuum maxamed cabdiraxmaan maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah saddexda xukunsane
ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markeed 31 bishii 12aad 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19 bishii 7aad 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29 bishii 11aad 2020 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi tawfiiq. taariikhdu markay ahayd 31 bishii 12aad 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow maxamed xaaji axmed ilka case 27 jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose labo saalim siciid maxamed salmaan 27 jir ah ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose saddex axmed maxamed haashim carab 26 jir ah ina cadday axmed islow ku dhashay shabeellada hoose kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah eedaysanayaashaasoo kale ah kow taariikhdu markay ahayd eedahaasi oo kale ah kow taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 8 2016 marxuum cumar maxamed abiikar labo marxuum sarreeye guuto bool ismaaciil axmed ismaaciil makayaalow taariikhdu markay 28kii bishii 10aad 2016 saddex taariikh 27kii bishii 4aad 2017 marxuum eki sarreeye guuto maxamuud xaaji cali afar taariikhdu markay ahayd 24kii bishii 9aad 2017 marxuum eki sarreeye guuto xoogga cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux iyo askari ilaalo u ahaa lagu magacaabayey marxuum ekis dable xoogga maxamed bile gacmey oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shan taariikhdu markay 16kii bishii 1aad 2018 marxuum cabdulqaadir daahir deyriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta soomaaliyeed lix taariikhdu markay 20kii bishii 2aad 2019 marxuum maxamed cabdiraxmaan maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah saddexda xukunsane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markeed 31 bishii 12aad 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19kii bishii 7aad 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29kii bishii 11aad 2020 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi tawfiiq. taariikhdu markay ahayd 31kii bishii 12aad 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow maxamed xaaji axmed ilka case 27 jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose labo saalim siciid maxamed salmaan 27 jir ah ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose saddex axmed maxamed haashim carab 26 jir ah ina cadday axmed islow ku dhashay shabeellada hoose kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah eedaysanayaashaasoo kale ah kow taariikhdu markay ahayd eedahaasi oo kale ah kow taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 8aad 2016 marxuum cumar maxamed abiikar labo marxuum sarreeye guuto bool ismaaciil axmed ismaaciil makayaalow taariikhdu markay 28kii bishii 10aad 2016 saddex taariikh 27kii bishii 4aad 2017 marxuum eki sarreeye guuto maxamuud xaaji cali afar taariikhdu markay ahayd 24kii bishii 9aad 2017 marxuum eki sarreeye guuto xoogga cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux
iyo askari ilaalo u ahaa oo lagu magacaabayey marxuum ekis dable xoogga maxamed bile gacmey oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. 5 taariikhdu markay 16 bishii koowaad 2018 marxuum cabdulqaadir daahir deyriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta soomaaliyeed. 6 taariikhdu markay 20 bishii labaad 2019 marxuum maxamed cabdiraxmaan maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka. waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. 3 xukunsane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markeed 31 bishii 12aad 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19 bishii 7aad 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29 bishii 11aad 2020 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa. wabilaahi tawfiiq. taariikhdu markay ahayd 31 bishii 12aad 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah: 1 maxamed xaaji axmed ilka case 27 jir ah, ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose. 2 saalim siciid maxamed salmaan 27 jir ah, ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose. 3 axmed maxamed haashim carab 26 jir ah, ina cadday axmed islow ku dhashay shabeellada hoose, kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah. eedaysanayaashaasoo kale ah: 1 taariikhdu markay ahayd eedahaasi oo kale ah: 1 taariikhdu markay ahayd 10 bishii 8 2016 marxuum cumar maxamed abiikar. 2 marxuum sarreeye guuto bool ismaaciil axmed ismaaciil makayaalow taariikhdu markay 28 bishii 10aad 2016. 3 taariikh 27 bishii 4aad 2017 marxuum ekis sarreeye guuto maxamuud xaaji cali. 4 taariikhdu markay ahayd 24 bishii 9aad 2017 marxuum ekis sarreeye guuto xoogga cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux iyo askari ilaalo u ahaa oo lagu magacaabayey marxuum ekis dable xoogga maxamed bile gacmey oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. 5 taariikhdu markay 16 bishii koowaad 2018 marxuum cabdulqaadir daahir deyriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta soomaaliyeed. 6 taariikhdu markay 20 bishii labaad 2019 marxuum maxamed cabdiraxmaan maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka. waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. 3 xukunsane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markeed 31 bishii 12aad 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19 bishii 7aad 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29 bishii 11aad 2020 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa. wabilaahi tawfiiq. taariikhdu markay ahayd 31 bishii 12aad 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah: 1 maxamed xaaji axmed ilka case 27 jir ah, ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose. 2 saalim siciid maxamed salmaan 27 jir ah, ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose. 3 axmed maxamed haashim carab 26 jir ah, ina cadday axmed islow ku dhashay shabeellada hoose, kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah. eedaysanayaashaasoo kale ah: 1
taariikhdu markay ahayd eedahaasi oo kale ah kow taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 8 2016 marxuum cumar maxamed abiikar labo marxuum sarreeye guuto bool ismaaciil axmed ismaaciil makayaalow taariikhdu markay 28kii bishii 10 2016 saddex taariikh 27kii bishii 4 2017 marxuum eki sarreeye guuto maxamuud xaaji cali afar taariikhdu markay ahayd 24kii bishii 9 2017 marxuum eki sarreeye guuto xoogga cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux iyo askari ilaalo u ahaa oo lagu magacaabayey marxuum ekis dable xoogga maxamed bile gacmey oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shan taariikhdu markay 16kii bishii 1 2018 marxuum cabdulqaadir daahir deyriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta soomaaliyeed lix taariikhdu markay 20kii bishii 2 2019 marxuum maxamed cabdiraxmaan maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah saddexda xukunsane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markeed 31kii bishii 12 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19kii bishii 7 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29kii bishii 11 2020 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi tawfiiq taariikhdu markay ahayd 31kii bishii 12 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow maxamed xaaji axmed ilka case 27 jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose labo saalim siciid maxamed salmaan 27 jir ah ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose saddex axmed maxamed haashim carab 26 jir ah ina cadday axmed islow ku dhashay shabeellada hoose kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah eedaysanayaashaasoo kale ah kow taariikhdu markay ahayd eedahaasi oo kale ah kow taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 8 2016 marxuum cumar maxamed abiikar labo marxuum sarreeye guuto bool ismaaciil axmed ismaaciil makayaalow taariikhdu markay 28kii bishii 10 2016 saddex taariikh 27kii bishii 4 2017 marxuum eki sarreeye guuto maxamuud xaaji cali afar taariikhdu markay ahayd 24kii bishii 9 2017 marxuum eki sarreeye guuto xoogga cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux iyo askari ilaalo u ahaa oo lagu magacaabayey marxuum ekis dable xoogga maxamed bile gacmey oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shan taariikhdu markay 16kii bishii 1 2018 marxuum cabdulqaadir daahir deyriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta soomaaliyeed lix taariikhdu markay 20kii bishii 2 2019 marxuum maxamed cabdiraxmaan maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah saddexda xukunsane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markeed 31kii bishii 12 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19kii bishii 7 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29kii bishii 11 2020 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi tawfiiq taariikhdu markay ahayd 31kii bishii 12 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow
maxamed xaaji axmed ilka case 27 jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose 2 saalim siciid maxamed salmaan 27 jir ah ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose 3 axmed maxamed haashim carab 26 jir ah ina cadday axmed islow ku dhashay shabeellada hoose kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah eedaysanayaashaasoo kale ah taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 8 2016 marxuum cumar maxamed abiikar 2 marxuum sarreeye guuto bool ismaaciil axmed ismaaciil makayaalow taariikhdu markay 28kii bishii 10 2016 3 taariikh 27kii bishii 4 2017 marxuum eki sarreeye guuto maxamuud xaaji cali 4 taariikhdu markay ahayd 24kii bishii 9 2017 marxuum eki sarreeye guuto xoogga cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux iyo askari ilaalo u ahaa lagu magacaabayey marxuum ekis dable xoogga maxamed bile gacmey oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed 5 taariikhdu markay 16kii bishii 1 2018 marxuum cabdulqaadir daahir deyriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta soomaaliyeed 6 taariikhdu markay 20kii bishii 2 2019 marxuum maxamed cabdiraxmaan maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah 3 xukunsane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markeed 31kii bishii 12 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19kii bishii 7 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29kii bishii 11 2020 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi tawfiiq taariikhdu markay ahayd 31kii bishii 12 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah 1 maxamed xaaji axmed ilka case 27 jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose 2 saalim siciid maxamed salmaan 27 jir ah ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose 3 axmed maxamed haashim carab 26 jir ah ina cadday axmed islow ku dhashay shabeellada hoose kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah eedaysanayaashaasoo kale ah taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 8 2016 marxuum cumar maxamed abiikar 2 marxuum sarreeye guuto bool ismaaciil axmed ismaaciil makayaalow taariikhdu markay 28kii bishii 10 2016 3 taariikh 27kii bishii 4 2017 marxuum eki sarreeye guuto maxamuud xaaji cali 4 taariikhdu markay ahayd 24kii bishii 9 2017 marxuum eki sarreeye guuto xoogga cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux iyo askari ilaalo u ahaa lagu magacaabayey marxuum ekis dable xoogga maxamed bile gacmey oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed 5 taariikhdu markay 16kii bishii 1 2018 marxuum cabdulqaadir daahir deyriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta soomaaliyeed 6 taariikhdu markay 20kii bishii 2 2019 marxuum maxamed cabdiraxmaan maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah 3 xukunsane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markeed 31kii bishii 12 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale
dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19kii bishii 7aad 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29kii bishii 11aad 2020 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi tawfiiq. taariikhdu markay ahayd 31kii bishii 12aad 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah: 1 maxamed xaaji axmed ilka case 27 jir ah, ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose. 2 saalim siciid maxamed salmaan 27 jir ah, ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose. 3 axmed maxamed haashim carab 26 jir ah, ina cadday axmed islow ku dhashay shabeellada hoose, kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah. eedaysanayaashaasoo kale ah: 1 taariikhdu markay ahayd eedahaasi oo kale ah: 1 taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 8aad 2016 marxuum cumar maxamed abiikar. 2 marxuum sarreeye guuto bool ismaaciil axmed ismaaciil makayaalow taariikhdu markay 28kii bishii 10aad 2016. 3 taariikh 27kii bishii 4aad 2017 marxuum eki sarreeye guuto maxamuud xaaji cali. 4 taariikhdu markay ahayd 24kii bishii 9aad 2017 marxuum eki sarreeye guuto xoogga cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux iyo askari ilaalo u ahaa lagu magacaabayey marxuum ekis dable xoogga maxamed bile gacmay oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. 5 taariikhdu markay 16kii bishii 1aad 2018 marxuum cabdulqaadir daahir deyriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed. 6 taariikhdu markay 20kii bishii 2aad 2019 marxuum maxamed cabdiraxmaan maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. 3 xukunsane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markeed 31kii bishii 12aad 2019. maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19kii bishii 7aad 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29kii bishii 11aad 2020 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi tawfiiq. taariikhdu markay ahayd 31kii bishii 12aad 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah: 1 maxamed xaaji axmed ilka case 27 jir ah, ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose. 2 saalim siciid maxamed salmaan 27 jir ah, ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose. 3 axmed maxamed haashim carab 26 jir ah, ina cadday axmed islow ku dhashay shabeellada hoose, kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah. eedaysanayaashaasoo kale ah: 1 taariikhdu markay ahayd eedahaasi oo kale ah: 1 taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 8aad 2016 marxuum cumar maxamed abiikar. 2 marxuum sarreeye guuto bool ismaaciil axmed ismaaciil makayaalow taariikhdu markay 28kii bishii 10aad 2016. 3 taariikh 27kii bishii 4aad 2017 marxuum eki sarreeye guuto maxamuud xaaji cali. 4 taariikhdu markay ahayd 24kii bishii 9aad 2017 marxuum eki sarreeye guuto xoogga cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux iyo askari ilaalo u ahaa lagu magacaabayey marxuum ekis dable xoogga maxamed bile gacmay oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. 5
taariikhdu markay 16 bishii koowaad 2018 marxuum cabdulqaadir daahir deyriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed 6 taariikhdu markay 20 bishii labaad 2019 marxuum maxamed cabdiraxmaan maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah saddexda xukun sane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markeed 31 bishii 12aad 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19 bishii 7aad 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29 bishii 11aad 2020 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi tawfiiq